بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بهذا كحرين شانال كميمر خان شانال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii sharxitaanka maadada fiisikiska ee fasalka form 4 ee manhajka cusub oo idinkaga imaanayo MK channel soo gudbiyay Wasaad Memory. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka inoo subscribe garee adigoo gujanay gambarka like commentigan waa inoo muhiim. mahadsanid. waxaan bilaabi doonaa jabtarka shanaad ee maadada fiisikiska ee fasalka form 4 ee la magac baxay refraction of light. waayahay cutubkan intaan ku guda jirno waxaan ku baran doonaa ama fiidiyowyada aan soo gudbin doono waxaan ku qaadan doonaa cashir ka hadli doono oo hadda aan qaadan doono ah refraction of light in a medium ama introductionkii qalocsanka ilayska ku dhaca maadaama aan soo baranay noqodka ilayska aynu soo baranay ee cutubka afraad hadda noo soo dhamaaday. haatan waxaan bilaabaynaa cutubka shanaad ee aanu kaga hadli doono refraction of light in a medium ama refraction of light qalocsanka ilayska ku dhaca iyo waxyaabaha markaasi isbedelaya iyo waxyaabaha sababta u noqonaya. waayahay si lamid ah waxaan ku baran doonaa intaan ku guda jirno cutubkan refractive index and speed of light. maxaa la dhahaa refractive index oo ah weheliyaha qalocsanka iyo weliba ilayska xawaaraha uu ku socdo. si lamid ah iyo cutubkani waxaan ku baran doonaa refraction by spherical lenses bikaacooyinka sphericalka ah ee refractionka uu sameeyo ama qalocsanka uu sameynayo ayaan kaga hadli doonaa intaan ku guda jirno cutubkani biinillahi ilbaari. waxaan ku hadli doonaa ama kaga hadli doonaa cutubkani intaan ku guda jirno graphical construction of spherical lenses maadaama refraction of light kii hore aan soo baranay graphical construction kiisa aan u kala saarnay in ay jiraan concave mirror iyo convex mirror ka aan soo sawirnay shaqooyin ahaan numerical problems aynu ka soo shaqeynay mid la mid ah qaybaha bikaacooyinkana anagoo ku dabaqeynaa refraction of light kana ku dabaqeynay idan sidoo kale waxay leedahay qaybo graphically ah oo la dhisi doono oo sawir ahaan loo muujin doono iyo waxyaabaha loo adeegsan doono insha Allah. waxaan baran doonaa optical lenses yada ama optical light ka qaasatan power of lenses ayaan kaga hadli doonaa oo bikaacooyinka awoodaha ay leeyihiin oo yani kuwa positive iyo kuwa negative maadaama ay jiraan iyagana sidoo kale waan kaga hadli doonaa. ugu dambeyn waxaan kusoo gudbin doonaa cutubkan optical instrument qalabyada oo aragtida loogu talagalay sida okyaalaha iyo wixii la mid ahi iyo bikaacooyinka loo adeegsado iyo qofka markaasi cilada qaba oo indhaha ka qaba ciladaasi oo aragtida midda fog iyo midda yar iyo midda dhowba ama labadaba waxyaabaha lagu saxay intaba aan ku baran doonaa maanta ama cutubkani weliba lessonkani koowaad waxaynu ku baran doonaa maxay tahay refraction of light in a media ayaan ku baran doonaa. horta marka hore si guud ahaan refraction of light aynu fahanno. let's go. lesson 1 waxaynoo ah reflection of light in a media qalocsanka ilayska uu ku sameynayo gudbiyaasha uu ku sameynayo. okay introduction marka hore waxaan baran doonaa maxay la dhahaa reflection of light qalocsanka muxuu yahay qalocsanka ilayska ku dhaca muxuu yahay. hot reflection of light waxaan ku qeexinaa waa bending of light rays in falaar ilays ka soo baxay meel soona maraya meel kale inuu qalocsamo as they passing from either soo maraysa ama they soo maraysa from one medium gudbiye to another meel kale maraysa ama gudbiye kale thereby changing the path of the rays. markaasi waxaa meesha ku bedelmayo wadada ama rayska falaarihii ilayska wadada ay ku socdeen ayaa markaasi halkaa ku bedelmi doona. okay the reflection of light maxaan dhahnay waa bending of light inuu falaar ilayskii qalocsama marka ay shayga ama falaar ilaysku ay kasoo safrayaan from one medium to another medium thereby changing in the path of the rays iyagoo markaa bedelaya marka changiga ama path of rays falaarihii wadada ay ku socdeen ka qalocsamay. مثلا aynu soo qaadno medium oo aynu u bixino marka glass ama glass ah waa gudbiyo weeyaan ilays gudbiyo ah. glasskaas waxaan ku soo dhufanay falaar ilayskaasoo la magac baxayno hore soo baranay incident today. falaar ilayskaasi waxa ay soo dhex martay marka hore intaynan ku soo dhicin glasska air hawadii ayay soo martay. kadib falaar ilayska waxaa ku dhici doona marka ay sii dhex marayso galaaska qalocsan ayaa ku dhici doona
oo halkan waxaynu ku sawiri doonaa normal linekii ayaan halkaas ku sawiri doonaa. Okay, falaartii soo dhacday ee galaaska ku soo dhacday waxaan dhahnay waa incident ray oo horaan usoo baranay falaar abaarti. falaarta qaloocatayna waa refracted ray, falaartii qaloocsanka ayaan kaga hadlay. falaarta incident rayga markaan waxay soo dhex martay air oo hawada ahi iyo weliba galaaska ayay sii dhex martay. halkan waxaan ku baran doonaa dhowr siyaabood ama dhowr arrimood ayaan ku baran doonaa. maxaa ka mid ah talo? waxaa ka mid ahi in airka markuu ku socdo falaar ilayska ay ka badan tahay marka uu galaaska ku socdo. yacni xawaaraha ilayska uu ku socdo in the vacuum ama airka wuxuu ka badan yahay mar waliba xawaaraha uu markaasi galaaska uu ku socdo. maxaa sababay marka inuu qaloocsamo? fiiri, qaloocsanka waxaa sababay in markaasi velocity ama xawaarihii uu ku socday inuu decreasing uu nusqaamay. xawaaraha isbedelkii ku dhacay ayaa waxay sababaysaa marka refraction ama qaloocsan ilayska ku dhacay sababaysaa. taana waxaa u sabab ah marka mediahi ay ka imaanayso iyo mediaha ay ka gudbayso ama ay dhex marayso. masalan tusaale, meel sawiibax ah ama laami oo kale ayaa baabuurkii ku socday. baabuurka markuu ku socdo haddii bacaadka marka uu yacni leexdo bacaadkaasi uu dhex marayo, sidii xawaarihii uu ku socday marka uu saarnaa laamigii iyo xawaaraha markaas uu bacaadka uu ku soconayo oo markaa bacaadka dhex maraya way kala duwan yihiin. waxaana zaa'id ah ama badan midka laamiga oo sawiibax ama laamiga markaas uu ku socdaalayo ee baabuurkay. qalooc yariisa markaas jiraan doono. taa u sababa qaloocsanka maxaa u sababa? yani changing yani velocity and speedki ayaa u sababaha. so waxaan kaloo baran doonaa marka meeshan ku baranay in hawada markii uu ku socdo falaar ilayska ay ka badan tahay markii mediaha kale ay ku socdaan. waayahay tani ayaan waxaan leenahay marka phenomenonka noocan oo kale ayaan waxaan u bixinaynaa marka waa reflection of light. qaloocsanka ilayska ayaan u bixin doonaa. waxay ka imaanayaan one medium waxayna ku gudbayaan another medium ayay ku gudbayaan iyagoo markaasi changing bus. ilan falaar ilayskan marka waa sii soconaysaa haddii booskeeda ama baaskeeda aysan bedelin, si toos ah halkan ayay sii socon lahayd, halkaas ayay kasii socon lahayd. so laakiin hadda changing bus ayay noqotay. taa oo sabab ah marka changing speedkii. waayahay intaa markaanu aynu ka fahnay refraction of lightka, waxaan kaloo usii gudageli doonaa termsiyo la xiriira ama raahyo ama erayaal badan ee la xiriira refraction of lightka. intaan ku guda jirno refraction, termsiyo mar walba oo laga yaaba inay noo soo laabtaan, laakiin mar walba inaan fahansannahayna aynu ku dabaqno marka bal aan isla fiirin. ugu horeyn waxaan arki karnaa henry marka falaar kastoo ilays ah traveling obliquely oo si jaranjeera ugu soo baxdayna optical red medium. erayaal badan oo waxaa jira marka aanu ku arki doonno cutubkan oo sharxaadiisana gadaal marsan. so laakiin waan intii aan horumarin karno waan horumarin doonaa insha allah. rare medium iyo waxaan maqli doonaa denser medium. rare medium waxaa loo yaqaanaa midka cufnaantiisu yar tahay. mid walboo cufnaantiisu yar tahay xawaaraha ilayska waa uu badan yahay marka uu halkaas uu ku safray. rare mediumka xawaaraha ilayska way ku badan yihiin. haddaba denser mediumka midka cufnaantiisu badan tahayna waa slower speed ayay leeyihiin. maxaan dhahnay? rare medium waxay leeyihiin fast speed, denser medium waxay leeyihiin slow speed ayay leeyihiin. taa oo macnaheedu tahay marka hadduu shayga uu ka soo baxo yani hadda waxaan ka hadlaynaa termkan ayaan ka hadli doonaa. haddii falaar ilayska uu si jaranjeera ah uu kaga imaado optical medium ama optical rare medium mid cufnaantiisu yar tahay oo gudbiyo cufnaantiisu yar tahay, taa oo ah in xawaarihiisu zaa'id ahaa markaasi on passing through asigana uu soo dhex maraya marka optical denser medium. taa oo macnaheedu tahay marka in xawaarihiisu uu hoos u dhac ku yimaaday oo qaloocsan dhacay. qaloocsankaasi dhacay maxaa waa marka normalkaan rabna marka inaan ku dabaano. qaloocsankaasi dhacay wuxuu towards uu ku wajahan yahay to the normalka ayuu ku wajahan yahay.
waa pointii markaasi u baahan in aad looga fiirsado oo mar walbana ay mudan tahay marka in xasuus loo yeeshto. waxaan dhahnay marka in fallaar ilaystu ama fallaar ilaysku si jaranjeera markuu kasoo imaanayo rare medium oo denser medium soo marayo, waxay fallaartaasi oo qaloocday ama bending racekii ka imaaday rare medium kasoona dhex maraya denser mediumka waxay kusii siqanaysaa towards the normal ayay ku siqanaysaa. waa kaa fiiri incident raygii soo dhacay wuxuu ka imaaday air hadda waxay u taagantaha waa rare medium, waa mid cufnaantiisu yar tahay. taa oo micnaheedu tahay marka speedkiisa ayaa high ah, speedkiisa ayuu wuxuu high ka yahay marka loo fiiriyo galaaska. haddaba galaaska muxuu yahay marka waa denser medium, waa gudbiye cufnaantiisu badan tahay. taa oo cufnaantiisa hadday badan tahayna waxay noqonaysaa marka in slowest uu yahay ama slow uu yahay marka loo fiiriyo xagga iyo speedka. kao u sabab ah marka in changing speedka ay u sabab tahay marka ama ay sababayso refractionkaasi kadib oo qaloocsankii dhacay wuxuu kusoo siqanayaa marka ilan shaygan inta uu sii soco lahaa laakiin hadda inta uu soo socda marka qaybta iyo normal lineka ayuu usoo socday. normal ayuu kusoo wajahaya marka loo fiiriyo the point of incident waa fahmi kartaan, waa barta fallaar abaarti ay kusoo dhacday loo yaqaana. termka koowaad waa ka. termka labaad waa midaan cagsigiisa. haddee wuxuu ka imaanaya rare medium denser medium, midaan cufnaantiisu badnayn ayuu ka imaanaya mid cufnaantiisu badanta ayuu dhex marayay. sida awgeed normalka ayuu ku siqayaa shaygii markaa fallaartii qaloocsantay. tanna waa cagsigeedii, wuxuu si jaranjeera ugu imaaday marka optical denser medium, marka wuxuu ka imaanayaa medium oo denser ah oo yacni cufnaantiisu badan tahay. taa oo micnaheedu tahay oo xawaaraha markaas ku yaryahay. okay, on passing through the optical rare medium, kao markaasi oo sii dhex maraya marka optical medium weliba rare medium ah mid cufnaantiisu ay yar tahay. taa oo micnaheedu tahay in mid xawaarihiisu ku badan yahay ilayska. bendis away waxay ka dhaqaaqaysaa fallaartii qaloocsanka ayay ka dhaqaaqaysaa, ay kasii sikanaysaa mar waliba to the normalka ayay ka sikanaysaa marka. okay, waa kaa galaaska ayuu ka imaado incident rayga ahaa. markaa fiiriso marka normal lineka markaa fiiriso fallaartii waa ay kasii sikanaysaa oo yacni xawaarihii ayaa markaa meeshaas ku zaa'iday. mar walbo xawaaraha uu zaa'ido fallaarta waxay kasii durqaysaa normalka. xawaaraha markuu nusqaamayana oo yacni denserka uu ku dhex nusqaamaya waxay kusoo sikanaysaa wax loo yaqaano normalka. okay, taa waa term kale. termkanna u baahan in hadhow aadan isku qaldin kuwa hore usoo marto kaga soo hadashay reflection of lightka. reflection of light markaan kasoo hadlayna waxaan dhahnay horta waxaa jira angle of incident aa jira, waa weli sidii le waaye. kan waa this is the angle of incident, this is the angle of incident, this is the angle of refraction, this is the angle of refraction waaye. angle of refraction iyo angle of incident waaye. angle of incident iyo angle of reflectionka ayaa marka hore kala fahmi doonaa. intaanan kala fahmin ka hor waxaan ogaanaynaa marka in labadooda horta aysan same ahayn. kii hore reflection markaan kasoo hadlaynay waxaan dhahaynay angle of reflection is equal to the angle of incident. haddii angle of reflection uu yahay 20 degree, angle of reflectionka waa 20 degree. angle of reflectionka hadduu 45 yahay, angle of wax loo yaqaan angle of incidentina waa 45 degree. tani way ka duwan tahay midaha refraction ka hadlayna. the angle of incidentiga in optical medium oo weliba rare medium marka uu soo marayo, angalka incident rayga rare mediumka uu soo marayo mar waliba wuxuu ka badan yahay angle of reflection. mar waliba wuxuu ka badan yahay angle of reflection. sidee? lianna midka normalka inta uu ka fog yahay kan kama foga oo waa uu kusoo siqayaaba normalka kusoo dhawaanaya. mar walba normalka uu kusoo dhawaado maxaa yaraanaya marka angalkii. midkan angalkii uu sii weynaanaya. angle of incident wuxuu mar walba ka weyn yahay marka angle of refraction. taa waa ina xasuusataa marka. waa mid kamid ah some termsyada ee la xiriira refractionka. way angle of incident inta lahaa waa tii hadda aan sheegayn. the angle-ka u dhaxeeya fallaar abaarta in normalka ayaa waxaa loo yaqaanaa angle of incident ayaa loo yaqaanaa. angle of refraction maxaa loo yaqaanaa waa angle ku dhaxeeya fallaar qaloocsanka iyo normal line-ka ayaa waxaa loo yaqaanaa angle of refraction. taa hore waxaan umaleynaa inaa mar walbana ay fahansan tihiin
haddana weli aad sii fahansanteen. Okay, waxaan u gudbi doonaa qeybo kale oo weliba la xiriira some terms about refractionka. waxaa ka mid ah in refraction of light marka laga hadlayo falaar qaloocsanka ilayska, angle of reflection is usually not equal to the angle of incident. waa tii haddaan ka hadlayno waa angle of refractionka mar waliba lama mid ahaan angle of incidentiga lama mid ahaan. It's not equal. Why? isku mid maahan, iskuma dhigmaan oo equal maahan. waayahay angle of refractionka of lightka ee u sabab ah due to changing in speed. meeshan xan yaraa ku jirta oo ah in refractionka uu sababay changing in speed of light, falaar qaloocsanka janjiga ku dhacay iyagoo markaasi ku safraya ama ku dhex socdaalaya from one medium meel ama gudbiye to another. And light travel faster in the air, wuxuuna faster ku yahay oo aad u dhaqsi badan yahay waa air hawada sababtoo ah waa rare medium, and slower in the glass, wuxuuna aad ugu hooseeya marka galaaska sababtoo ah waa denser medium. eryaasha kale ee aan barana maxaa ka mid ah maxaa la dhahaa rare medium, maxaa la dhahaa denser medium, intaasaa hadda barana oo labada ah, iyo weliba waxa loo yaqaano reflection of light. Okay, iyo angle of incident, angle of refraction, intaas hadda haynaa. waxaa ku baranay marka reflection of light waxaan ku sheegnay waa bending of light, in falaaraha ilayska ay qaloocmaan ama qaloocsan ku dhaca iyagoo markaa ku safraya from one medium to another medium. haddana maxaa u soo baxay changing speed of light on going from one medium to another medium. way halkuu ku badan yahay uu ku dhaqsi badan yahay refractionka ama ilayska waa rare medium oo ah air, halkuu slower uu ku yahay waa denser medium oo ah glass ama water iyo wixii la mid ah. Okay, markan waa kiis yar oo ka duwan marka kiisaska hore oo aan kaga soo hadalno oo ah haddii falaar ilayskiiba from one optical medium to another medium oo right angle ahaan oo ugu dhaco kabarbar xagal quman markuu yani perpendicular ahaan si toos ah oo xagal quman ahaan oo ugu dhaco normalka uu soo maro, sidoo noqonaya marka refraction ma dhacay maxaa dhici doona marka. Okay, waa ka airkii ayuu si normally ah oo 90 degree oo reflection of light oo refraction of light ah ama 90 degree oo la sameeyay. so mar right angle weeyaan, mar hadduu xagal 9 degree la sameeyo waa right angle, waa xagal quman weeyaan. Okay, waxaan leenahay markii light ray of lightka uu surface-ka uu kusoo dhaco optical medium-ka ay kala duwan sidoo soo dhex maraya from rare medium to denser medium-ka, and it doesn't suffer any refraction. wax refraction oo dhacaya ma leh, any refraction dhacaya ma leh. kaliya straight-kii baaska ay soo martay isla straight-kaas ayay markaasi ay ku soconaysaa, markii straight baas ku soconaysaa. sida la mid ahay waxaa meeshaas kusii sheegi karnaa marka angle of incidentiga as well as angle of refraction is zero. xagasha abaarta ama falaar abaarta incident rayga xagasha ay la sameyn lahayd normalka iyo xagasha reflected rayga uu la sameyn lahaa normalka dhammaantooda waa zero. su-aalaha meeshan laga weydiin kara maxay tahay incident ray ama incident of angle iyo refraction of angle goormay zero yihiin. haddii falaar ilayska si normal ah oo ugu soo dhaco glass ama denser medium, refraction miyaa dhacaya? jawaabta muxuu noqonaya refraction ma dhacaya. incident angle ama angle of incident iyo angle of refractionna waa zero. waayahay laws of refraction of light, waxaa jira marka xeerar uu refraction of light uu leeyahay inuu kusoo koobnaato Snell's law, xeerka Snell oo qayb ka ah marka the incident ray. xeerka koowaad wuxuu leeyahay the following are the laws of refraction. laba xeer oo leeyahay sida reflectionkii oo lahaa oo kale ayuu laba xeer u leeyahay. kan waa refraction weeyaan oo qaloocsankii ah. horta falaartii abaarta refracted rayga falaarkii qaloocsan baysa normalka dhammaantooda ee u dhexeeya labada medium ay isku kala gudbayaan ama the point of incidentiga oo lee waxay dhacayaan dhammaan at the same plane, salax isku mid ayay dhacayaan. taa waa midda kale ratio-ga u dhexeeya sin angle of incidentiga iyo sin angle of refractionka is constant waaye, waa mid markaasi constant ah
for the light of a given beer or medium ilaa laga gaari xitaa ama until medium at the same ilaa iyo mediumka uu same ka yahay haddii uu kala duwan yahay saas weeyaan. micnaheedu maxay tahay sin angle incidentiga iyo sin angle ratio ka dhexeeya oo constantiga ah taas Snellish law ayaan u qaadan doonaa. Snellish law wuxuu leeyahay relates wuxuu la xiriiraa the sign of angle of incident xagal abaarka sinka and transmission of the index erey kale oo cusub haddana noogu soo dhex darsoomay index of refraction wehliyaha qalocsanka iyo sidoo kale ayaan ka baran doonaa for each material oo refractive indexna waan baran doonaa sidoo kale wuxuu la mid yahay anagoo u fiirinayn marka Snellish law reflection of light-ka waxaan leenahay marka waa warkii aan ku celinaa oo kaliya ratio u dhaxeeya sin of angle of incident to the sin of angle of refraction is constant y for a given beer of media ama haddii lagu siiyo air and glass ama air and water labadaba. So ratio u dhaxeeya marka angle of incidentiga iyo angle of refractionka ayaa constant ah marka constantigaas ayaa marka waxa u bixinaynaa marka refractive index. bal aan sida fiirino sin of angle of incident marka loo qeybay sin of angle of refraction waxay la mid tahay constantiga maxay la mid tahay marka sin of I oo loo qeybay sin of R equal constantigaas hadda calaamadaas microga aan u qaadanay ama mu aan u qaadanay. So mararka qaarna waxaa loo qaataa n ayaa loo qaataa marka oo refractive indexka markii loo fiirina marka refractive indexka waxay la mid tahay marka sin I oo loo qeybiyey sin R ayay la mid tahay. constantigan oo calaamada noocan oo iskool waxaa loo yaqaan refractive index oo ah wehliyaha qalocsanka. Okay, wehliyaha qalocsanka muxuu yahay? ogsoonow ereyada badan ee aan hadda soo baranay hadhow yeesan isku dhaxyaacin. waxaan soo barnay red medium waa gudbiyaha ilayska oo aan cufnaantiisu badnayn oo cufnaantiisu yar tahay taa oo speedkiisu xawaarihiisu u zaid yahay. iyo denser medium waa gudbiye ilays oo cufnaantiisu badan tahay laakiin xawaarihiisu ay yar tahay. sidoo kale waxaan soo barnay ereyga refraction of light oo ah aan ku sheegnay in qalocsan ilays ku dhaca markii xawaaraha oo ilayska uu iska bedelo markuu ku soo safrayo meel ama medium to medium kale. hadda waxaan baranaynaa refractive index. bal aan isla fahanno refractive index maxaa la lahaa. qalocsanka muujiyaha medium waliba waxay leedahay index u gaar ama refractive index u gaar ah oo markaasi lagu kala saari kara marka xawaarahooda oo rare medium iyo denser mediumka way kala duwan yihiin. marka rare mediumka iyo denser mediumka ayaa waxay kala leeyihiin marka different refractive indexka. sidan airka oo kale oo refractive indexkiisu waa qaas oo tiro qaas ayuu leeyahay. galaaska oo kale tiro qaas ayuu leeyahay isagoo haddana denser ah. haddana sidoo kale waterka isagoo denser ah haddana wuu ka duwan yahay marka loo fiiriyo galaaska. waayo refractive index waxaan leenahay marka is the measure of bending of light ray when passing from one medium to another. waa cabiraada qalocsanka ilayska ama falaaraha ilayska marka ay kusoo dhex socdaalayaan ama ay kusoo safrayaan ama ay soo marayaan one medium to another medium ay marayaan. cabirkaasi la cabirayo qalocsanka sheygaasi mediumadaha kala gudbinaya ku kala gudbaya ayaa waxaa loo yaqaanaa refractive index oo ah wehliyaha qalocsanka. bal aan isla fiirino waxar hadda waxaan soo fahnay qaacida ah sin I ee loo qeybiyey sin R inay la mid tahay mu oo ah constantiga si la mid ah aan dhihi karno marka refractive index. kaba soo qaada la falaar ilayska xagal abaarka falaartaasi xagal abaarkeeda ayaa waxay falaar ilayska ee hawada ka imaada ayaa waxay dhantaa la yiri 37 oo degree ah. yani falaar abaar hawada soo dhex socotay normalka angle-ka ee la sameeyo angle of incident noqonaya ayaa 37 ah. iyo waliba midka galaaskiisii dhex maray oo qalocsan sameeyay angle of reflectionka oo waliba la sameeyay refracted ray-ga ayaa waxay tahay marka 24 bar constant inay tahay. bal aan isla fiirino oo waxaan rabnaa marka inaan ogaano hadda galaaska weeyaan waxaan raadin doon refractive indexka oo galaaska waa imis marka refractive index of galaaska tirada aan helno ayay noqonaysaa marka tiradii refractive indexka oo galaaska inuu la mid yahay. marka mar walbana taasaa inta badan qaadanaysa refractive index of glass intaas weyn. aan isla fiirino qaacida sidaan ayay noo ahayd I waan haysanaa is the I ama angle of incident weeyaan
this is the angle of reflection weeyaan. Okay, bal angalayaasha aan bedelno. dad qaar waxay sameeyaan ardayda qaar badankooda aragnay sidii todoba si toos u bedelanayaan ilaa 4 maya ayda booskeeda kaliya bedelanaysa iyo art booskeeda kaliya bedelanaysa sin 37 oo loo qeybay sin 24 durba marka iyagoo sin raacsinaysa ayaad sin tv-ga si toos u gelinaysaa waxayna nasinaysaa marka inay la mid tahay refractive index-ka of glass inay la mid tahay 1.5 xusnow refractive index-ka of glass-ka mar walba waxay noqonaysaa marka waa 1.5 weeyaan waayahay 5.1 example aan ka soo qaadno kan waa yani dhoolatus ay ahayd example-ka saxda hadda ayaan fiirin doonaa okay Snell's law weeyaan weli aan ku jirnaa Snell's law sababta u baranayna maxay tahay aan u adeegsanayna maxay tahay Snell's law sababta u baranayna waxay tahay to find the incident ray ama incident angle in a red not incident angle-ka ama to find the refractive angle iyo to find the refractive index in a raadina ayaan u baranaynaa marka qaacidadaasi oo Snell's law ah haddii aan raadinayno qaybtaani bal aan isla fiirino waxaadana la diray iyo sida u raadin doono waxaan dhahnay marka angle of incidentiga angle-ka xagalabaarka ahaa ee la sameynayay normalka uu la sameynayay angle-ka sameysmay oo angle of incident noqday hawadu soo dhex socdaashay ayaa 45 degree haddii falaartii travels road water haddii soo dhex marto water kaasoo weheliyaha qalocsankiisu yahay 1.333 raadi angle of reflection haddii waxaan raadinay constantigi ama refractive indexkii hadda waxaan raadin doonaa angle of reflection ayaan raadin doonaa sidaan ku heli doonaa marka hore qaacidadii asalka ah inoo soo qaad hada intaan qaacidada gudbin ka hor gifinkan aan baxsan maxaa meesha ku haysanaa angle of incident waxaan haysanaa 45 waxaan kaloo meeshaan ku haysanaa refractive index of water 1.333 ah waxaan raadin doonaa marka angle of reflection okay sida guud qaacidadii waata sin I oo loo qeybiyay sin R mu ay la mid tahay okay waxaan rabnaa marka inaan helno marka angle of reflection marka hore si isweedaar aan isku dhufano oo sin R waxay la mid noqonaysaa marka sin I oo loo qeybiyay sin I oo loo qeybiyay marka mu oo ah refractive indexki anaga hadda waxaan u soconaa angle-kaas kaliya raadin doonaa angle-ka si ku heli doonaa marka sin-ka markaan wareejinayno sin inverse aan ku wareejin doonaa oo waxay noqonaysaa marka sin inverse sin I oo loo qeybiyay mu qaacidada waa ka marka qaabkaas ayay noqonaysaa marka qaacidada aan ku helayno marka angle of reflection haddii aad u baahan tahay marka angle of incidentigna waxay la mid tahay labadan oo la isku dhuftay ileen soo aan mu oo lagu dhuftay marka sin R ay la mid tahay ka la mid ah marka sin I ay la mid tahay marka sin I waxay la mid tahay marka qaybtan labadan oo la isku dhuftay okay I kaliya la rabaa marka oo incidenti I ah waxay la mid tahay marka sin inverse lacala haddii ay raadinayso weeyaan oo angle of incidentiga sin inverse waxay la mid tahay marka mu oo lagu dhuftay marka sin R mu oo lagu dhuftay marka sin R ayay la mid tahay marka saddexdan qaacida kama dhexdheera markaan raadinayso marka qeybahan oo refractive indexka oo waliba adigoo lagu siinayo labada angle ama in lagu siiyo labada angle oo reflection iyo incidentiga ah oo aad raadinayso mu oo qaacidana u marayso labadoo la isku qeybiyay ama inaan mid hadda aan raadin rabno oo ah inaad raadiso angle of reflection qaacidana u maraysa angle of incidentigana qaacidadaas u maraysa qaacidooyinkaas wax ka dheer ma jiraan marka okay haddii ay sii jiraanna waa qeybo kale oo markaasi dharaandharin iyo waxaasi oo ku bedelashada lagu keen waayahay durba waxaan ku bedelanaa marka qaacidadan tirada aan haysano oo I waxaan haysanaa 45 mu waxaan haysanaa 1.333 sin inverse ayaan leenahay jajab ayaan samaysan doonaa sin 45 oo loo qeybiyay 1.33 durba R ama angle of reflection waxay la mid tahay marka 32.04 oo degree ah ayay la mid tahay aad u mahadsantihiin dhegeysigiina waani daawashadiina qaaliga ah fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka inoo subscribe garee adigoo gujinaya gambaleeka like commentigana waa inoo muhiim mahadsanid la soco cashirka xiga